iskadaa ku yar oo mudaharaad ku seexdo ku soo kaca mudaharaad la mudaharaaday waa ribal xaafadada ka soo baxayn baan ku yiri mar walba 18 may xusanay maantana 36 weeyaan sidii un bay noqoni cid noo higaadin karta anagu haddaan dhalinyartiinahay ma jirto 18 may marka la leeyahay waa maalinta qarannimada weeyaan horena waanu xusi jirnay maantana waxba kama duwana waanu xusaynaa annagoo dhalinyaradii gobolka Awdal madaxweynihii daahir rayaale ka ilaahay raalaha ka noqday waxa uu ahaa madaxweynihii keenay gobolada bariga 18 May iyo maalin walba qaranno way dhacaysaa cid ka hor istaagi kartana male annaga Soomaaliland madaxweyne ka ah kana noqon doona kuna haweenana ka noqon dawlad deegaanka iska jooga ama Djibouti jooga ama Yurub ka jooga Faransiiska iyo UK oo intuu Facebook qol yaro inta ahayn ba intuu wax ku soo qoro soo dhigayo le siyaasayn waxyeelanayo 18 May baan mudaharaad galayna cid ka yeeli maysan ku leenahay waxaad adigu leedahay awlan assalaamu calaykum ilaahay ya mahad iskale iskuukan keenay halkan waxaanu halkan kaga hadlaynaa saddex qodob oo qodobka koobaad yahay in 18 May aanu xusayno annagoo dhalinyarada gobolka Awdal oo dhameystiran Soomaaliland 35 sano hore halkan lagu xusay 18 May maantana aanu ku xusaynaa 18 May marka la leeyahay waa maalinta qarannimada weeyaan horena waanu xusi jirnay maantana waxba kama duwana waanu xusaynaa annagoo dhalinyaradii gobolka Awdal oo isku raacsan inaanu xusno qodobka labaad waxa weeyaan nimanka soo abaabulaya arrimo aanu gobolku u baahnayn oo mudaharaad iyo waxaan gobolku maanta xamili kareen soo abaabulaya mid baan halka uga sheegaynaa kuwii shalay dhiiga dhalinyaradayada amba nuucina la midka ahaa masaariifsanayay maanta markii albaabadii dawladdu ka soo xidhmeen nugule haddana mudaharaad kala sameeya war ilma adeerayaal tolow karimeyn annagu mudaharaad war shalay intii naga dhimatay ayaanu maanta meel aanu u raacno iyo cid aanu ku hagaagno aanu garan laanahay nuuc naga midana kuwa kale annaga nala mido maanta noolla inay wax naga noqdaan diyaar uma nihin midda labaad waxa weeye war shalay markii xaaladdu adkeyd ee meel adag taagneyd niman guryaha safaari loogu keenayay oo cuntada safaari ku qaadanayo daaqadaha dadka ka soo eegayay maanta nagu oran maayaan haddana mudaharaada markay taasi dhamaatana madaxtooyada hoos u tegi maayaan labada qodob markaan dhaafo qodobkayga saddexaad wuxuu noqonayaa dadka aan gobolka joogin amba meelaha qurbaha jooga amba dawlad deegaanka amba Djibouti jooga war nin walow waxaanu ku leenahay siyaasadda ku khusaysa adiga ka hadal annagu haddaan nahay dhalinyaradii gobolka Awdal waanu fahmay shaxda ciyaartana waanu fahmay halka loo socdana waanu fahmay Somalilandna waanu xusaynaa waanu ku qasbannahay waxaanu maanta dooranayna ma ahayna waxay awyaasheen noo dooreen xuska maalinka 18 Mayna waa maalin qaran war dad baa hadalkayga intay sarifaan oran doona waa laga dambeeyay waa la soo diray warniyo waxa halka taagan iga dambeeya waa dhalinyaradii Gadabuurso dhan waa loo dhan yahay reer ka dhiman ma jiro ilma adeerayaal war inta nala midka iyo inta naga yaree lagu guurayaba waxaanu u sheegaynaa war inta anagu aan isla garanay anagoo dhalinyaradiniya nala garta ninowna gurigaaga amba guri hooyo kale midha yeeliniyo door gaban baa la yiraahdaa halkeed gaban maanta halka laba qodob ma ka sheegaya iskadaa ku yar oo mudaharaad ku seexdo ku soo kaca mudaharaad la mudaharaaday waa ribal xaafadada ka soo baxayn baan ku yiri adeertayna kan xukuna annakina naga gooda inkaana wixina goyna adeer macaan wartay waa lagu wada heshin lagu kala tagi maayo baan ku yiri bal maalintaan arko ku yar oo mudaharaad iyo waxa sameeyay baan ku yiri xiliyahayna fuulayna waxaan halka u soo istaagnay waa hal arin dhammaan dhalinyaradaasina waxay igala muwaafaqsan yihiin oo mowqifka igala qabaan waxay tahay waa hal arin kaliya toon taasoo aanu soo bandhigayno dhalinyarada Gadabuursi oo ku tusayno Soomaaliland waxa ay ka yihiin waxay ka galaan iyo waxay ka gudaan horta mid inaan isla garanno baa qurux badan war mar ragga Gadabuursi waa raggii qarannimada Soomaaliland dibadda u aasay taa marka laga yimaado madaxweynihii daahir rayaale ka ilaahay raalaha ka noqday waxa uu ahaa madaxweynihii keenay gobolada bariga tiraafka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa keenay maanta oo wasiir Cabdiraxmaan waata maanta Soomaaliland oo dhan ay ku wada qanacsantahay kuna faraxsantahay in u dabaaldegayno waxaan dhammaan markaa dhalinyarada Gadabuursi aan mataqaana ku dhiirigelin lahaa warinay aaminaan Soomaaliland darnimadooda waxaanu halkaa aan uga wada mideysanahay dhalinyaradaasina ay meesha wada joogaan waa sidii looga hortagi lahaa ninka Djibouti
iyo dowlad deegaanka iyo mataqaana qurbaha ka soo biilinaya caruur yaryar oo $20 intuu soo diro haddana odhanaya mataqaana magaaladiinii burburiya oo mudaharaad ka taaga wallahananu ka helin oo bilaahananu ka helin oo tallahananu ka helin intaasba waxay raggaasi u joogaan oo ay ka midaysan yihiin waa sidii Somaliland iyo mataqaana manaafacaadkeegaba ay u goran lahaayeen insha Allah waxaan rajeynayaa dhammaan in dhalinyaradu nala fahanto Somaliland waxay ka yihiin iyo mataqaana shalay toolo meesha ka keeneen iyo maantaba halka ay taagan tahay oo wadankii wadan la aqoonsado noqdo insha Allah waxaan rajeynayaa in 18 loo soo baxo dhammaan gurihooyinka aabayaasha dhalinyarada kacaanka waxaan ku dhiirigelin lahaa in la xuso qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliya gabaygii ahaa abwaangaariya Allah u naxariistee orgigii la naaxshee adhiraacdu dhaqataa ku asqaysay heestee naxariis ujeeddo leh aaminee run moodee ayaantii la gowracay is ogaaday baan ahay cudur igu unkamay baa iniintiisii biqisho ayax beri isoo maray eeluu ka tegey baa uurkayga jiifto aramaa i hurudo anigoo arkayaan axankayga daaqo macaan jeceshii oo sun ah loo ursiiyey malabkee ku ilaatay maa noqon marka aniga nin qurbaha joogay wiyihii gaadinayo siyaasadda iyo waxa ka dhexdhacaya gobolka awdal waxaan anigu asmici kara maaha ama aan qaadan karo sababtoo ah dhalinyarta maanta meesha joogtay ama dhalinyarta maanta gobolka awdal ku sugan waa dhalinyar ay u bisishahay ama si fiican u og waxa ay tahay dee maanta siyaasadda iyo waxa gobolka awdal laga dhex wado nin gobolada dowlad deegaanka iska jooga ama Djibouti jooga ama Yurub ka jooga Faransiiska iyo UK oo intuu Facebook qol yaro inta la ahayn ba intuu wax ku soo qoro soo dhigayo le siyaasayn wax yeelanayo 18 May baan mudaharaad galayna cidi ka yeeli maysan ku leenahay waxaad adigu leedahay 18 May xusani maantana 36 weeyaan sidii bay noqon cid noo higaadin karta anagu haddaan dhalinyartiinahay ma jirto dad gadabuursi tahay ama qurbaha joog ama qulqul joog ahawo waa ninka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirrow markaynu dooranay codkii gobolka awdal yaalay 90% isaga loogu shubay wixii loogu shubay waxay ahayd war insaami qaybsiga awdamiiska soo saaro dhaahdo war talkayo waxaynu isku haynay iyo waxaynu isku dooranayba waa kaasee ahaynu ka wada falanqeyno aynu islaam xaarana dee intii la oran lahaa haddii nin walba uu gooni meel ka soo hadlo yidhaahdo war dee intaan siyaasad ka arkayo ama inta aniga iiga aragti bisil ayaan ka hadlayaa maanta ama dhalinyar ku kicin ama aanay cid ku maamuli war niyahow inooma wacna arrinkaasi waxaynu doonayno ha caddaado waxaynagu aanay muqadas u aragnay lama taabtaan u aragno haynu dadka ula tegno kaasoo ah wanaw Somaliland 36 sano jirto dee madaxweyne weynu ka soo noqonay imikada maanta waynu joognaa ku xigeenaynu ka nahay Allahu musta'an helka kama maqnin meel la kama maqnin siyaasadda Somaliland meel walba waynu kaga jirnaa inaga xidhnoo furna inagaana nala daba fadhiistaa la'aanteena wadiga arkayo qaranku la'aanta siyaasadda Somaliland meel la mari mayso oo 5 cisho oo shaqaaqeer socotay ayaad arkaysay hoos u dhaca ku yimid wadankeena no mid baa idin sheegaya nimankan qurbaha joogay ku wareeray siyaasadda Somaliland iyo waxa idin leeyahay 36 sano Somaliland jirtay haddaad leedihiin siyaasaddan aad ku shaqaynaysay ee awoyaasheen u fadhiisteen ee laga golo fadhiistay ee raaliga laga ahaa ileen waxaan ku uri geed hoostii lagu gooyey haddaad leedihiin waxba kama jiraan weeyi oo waxaan ku 36 sano baraankiyaad ku jirteen dee ma siyaasadda saxda ah idinku noo haysaan dee 36 sano waa waqti aad u badane yaana kusii jiri maan leenahay siyaasadda ka wanaagsan ee noo haysaan intoon isku timaadaan oo gadabuursi talo u dhan yahay la isugu yimaado bal siyaasadda saxda iyo wadada dariiqan aad idinku arkaysan inuu sax yahay danoolo imaada dhalinyartii magaaladaanu nahay maalin walba wadna marin habaabinaysaan waxaan ku uri wax been iyo wax kama jiraan ayaa dhalinyartii gobolka nin walba dee habeenba waxay ka qabato soo dhigayaa miidiyaha nin walba siduu wax la yihiin buu soo dhigayaa war waxaan leenahay gadabuursi taa u ka ilbaxay nin walbana siyaasaddu wuu basasho u fahansan yahay ninna loo tilmaami maayo wax walba say u jiraan dhalinyartaad arkaysaani dee waa dhalinyar nin walba dee fikir gooniya nin walba fikir buu leeyahay sa fikirada markay isku tagaan dee fikir wanaagsan baa ka soo baxa 18 May iyo maalin walba qaranna way dhacaysaa cid ka hor istaagi kartana male annaga Somaliland madaxweyne ka ah kana noqon doona kuna haweenana ka noqono intaydaas ma annaga diyaar ah war Somaliland gadabuursiye saaqa maanta isku soo haray dee laba reer oo isleeg weey waxaan ku uri waxna isma dheera dee madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi maalinkii loo codeynayay gadabuursiye waxaad ugu codeysan dastuur baa furaya raalina waad ka wada haydeen codkiina waad ku siiseen
haddii maanta madaxweyne ciro dastuurka diyaar waa inuu furo dee gadabuursiyo talaa la iska weydiin oo waa laga wada hadli oo waa laga fadhiisan ogolaanna mayno maanta laba reeroo siman baan nahay dee wixii naga maqanaa doonataan maynu iska sugayna gadabuursiyo wey maalinkii aad dhalinyarta adeegsan lahaydeen ee dhalinyarta fikirkooga aad haydin lahaydeen ee waxaa ku yidhi magaalada Boorama bilicdeeda arkayso waa magaaladii gadabuursi waa xuduntii gadabuursi waxaa ku yidhi waa gurigiisii ma nin baa gurigiisa dumi lagu dhahaa meeshana duminaysa dee cirana male cid kalena male waa gurigii gadabuursi waana magaalada gadabuursi waana astaanteeni wane waxaa intood iska daysaan nimankiina gadabuursiyow ee qurbaha ku waashay iyo nimankiina kale dowlad deegaanka iyo Jabuuti iyo meel walba siyaasadda ku dawaqay intood magaaladiina timaadaan tala iskugu timaadaan dee ninka dastuurka aynu furninaano ugu dambayn waxaan leeyahay wane nimankan gadabuursi ee jooga dowlad deegaanka ee siyaasaddan Soomaaliland ku dawaqay wane saamigiini wax u doonataan Mustafa Cagshar war saamigiini wax u doonto Mustafa Cagshar oo waxa ku degmooyinkiini iyo goboladiini dee saamigii ugu doonta reero yarood kaga badan tihiin baa saamigiini maalin walba halkaa ku doonta gadabuursiga degan Jabuutina waxaan leeyahay warda siyaasadda Ismaaciil ninkaa doorateen dee ku daba fayla ugu dambayn guntiga ganaanadkii nimankeena Somalilandna warda annaga Somaliland darisa annaga gobolka wada degan wixii maqan iyo wixii yaal baa annaga naqaan annaga sidaan u xalinayna naqaan siyaasadda soo faragelina tiina ma soo faragelina idinkaaba wax la rabnaa in horumarin la rabnaayo inaad meel gaadhaan la rabnaayo siyaasaddan Somalilandna waxaan leenahay ha soo faragelinina annaga naqaan annaga xirayna annaga furayna oo waxaaban anagu markii hore anagu waxaan islayn oo fikirkaan aaminsaneen wuxuu ahaa in tolweynaha gadabuursi ay dee magaalada Boorama ka kaftamin oo ahayd xuduntoodii xadaaradoodii magaalada ay ku faanayeen balse waxaa noo cadaatay inay Boorama maalin walba noqotay meel dee la iskaga soo degdego nin walba dee maalinkii dani ka soo gasho uu yiraahdo hal la gubiyo hal la mudaharaadiyo ayna wax la jeclaaba kaga jirin warda anagu jigjiga la jeclaaba ka leenahay waa magaaladeedii waa deegaanadeedii dee gubanan maalin halka intuu miir soo istaagnay hal la gubiyo hal laga mudaharaadiyo warfa laga qaato man oran sasaan filaynin noqon weyday ilaahu gadabuursi waxaan leenahay kii ilaahu gadabuursimide taladooduna meelaha isugu timaado oo noo reer weyn buu ilaahay ka dhigay sidii reer weyn gadabuursi u dhaqma oo inaga daayay waxaanad wadaan iyo hoosaasinta miiriyaha wad ka wadaan